إلهه وادركتا إن ما أنت اللي هي إلهه وادركتا عندما مغريه تقبلكم وضع ماضي وحاول تتيه والماسنتي وحاند الله هاي شركنا وينو فرين هاي هذه أنا وايدين سلامية وحي قد أن دافعنا رجع قدام بيا خدر دوني سلادين تا ما أنت وحين يسوون نبي مدشي أيلو أنت بدن سوودني دوني إنه كل منه لبنتي قبل هذا سوري سراج عين إنه يسوي بعده وهو إله الله وحمد الله إله هو كوكو شكر هو كوكو مهد إنه ما أنت السنة إنه كتشرنا أيهنا يمسير كنا يمجعنا تتكدلس كنا النبض يمناك لون ورندون إن شاء الله تعالى وحن هل كان مركب كواد يا مركب لباد وتحصيلين يا لمان للي يردي حبل يوير البراهين وضياشي علومة يسوجرتي نجربوتك أنتي كل بتي لاسعارات ورنتي وحن قرح بدني كدعي لما أنت وحولين أنت اللي مثلا إلهي أو نحرسته أنت داوعتنا إلهي هو بوغنيو دبكي وحوي دتك اللوجيستي يحسوق اللوجيستي وحوي واتكنتي إن شعبك كدرين عليو وما أنت مسير كودي سوي ماد أنا وقولها فرية دتكنا أو حوي أي مرتيين هذا نوع عن هوسة كحريقي حوشنين وضلنا ننا أنو قالوا هاي ننا أنو نعارض ديرين واي وضلا أنو مرينو ووضل ديروي هدي قرادة هاي هدي علومات هاي هدي أي قرعسة هاي هدي أي نقربوت هاي هدي حتى أي صحافة هاي هدي أي أرماها بالشدة أوردنت هاي رجع الدمر با ما أنت وحوي iyadoo dumarka waxa weeye shariicada lagu sheegay inay kunta yihiin raguna uu boqol yahay hadana maanta xaaladda lagu jiro waa loo wada simaya xaalad siyaasadeed ma aha xaalad waxa weeye dhaqan ma aha xaalad waxa weeye hawleed weeye xaalad nin laga leeyahay ama qof laga leeyahayna ma waxaynu maanta doonaynaa inaynu ka talino in aynu masiirkeena iyo ayaheena si miisaan leh oo mug leh aynu uga tashano waxaan maqlay oo media ka maqlay waxyaalo lagu qorqorayo hebel baa sida la yiri hebel baa saa la yiri reer hebel baa sidaasa war waxaasi meesha ka shaqeeyaan maanta labeentii goboladu way fadhiyaan dhaqankii oo dhan waa fadhiyaan ninna madasha laga celin maayo ninna laga malaha nin walba wixii calooshaada ku jiray leeg waa inaad liqdaa waxa weeye nin walba waxa weeye maanta halkan midnimo iyo horumar iyo talo wanaagsan ayaa loo fadhiyaa anigu garaadkii uga shaqeeyay baan ahay waxa weeye wararka la sheegayo waxba kama jiraan anigu garaad baan celin suldaan baan celin caaqil baan celin nigarbood baan celin siyaasi baan celin waxa weeye culimo baan celin waxa weeye saxaafad baan celin dhammaan cid waliba gogoshan waa furantay nin walba waxaad ahayd adiga ah laakiin tala weyn aynu wada leenahay waayo maanta inaan ka yara caaw dhashay hadii ilaahay ba aqli siiyo markiiba kama maaranno marka taa horta hal ogaado waxa weeye hal la isu dulqaato hal la ismaqlo wadada aynu marayno ayaa ka dheer waxa weeye shakhsiyaad ama qof ama waxa weeye group ay waxa weeye lagu tilmaamayo waxaynu maanta u baahannahay taladan aynu sugu nimid tala aan degdeg ahayn tala aan caafifad ahayn tala aan waxa weeye lagu tunturoon baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay in qof waliba wixii calooshiisa ku jiray halka uu iska dhigo waxaynu u baahannahay qof waliba wuxuu aaminsanaa inuu halkan iska dhigo waxaynu u baahannahay qof waliba wixii jeebka ugu jiray inuu halka iska dhigo maanta waxa weeye reality on the ground bali taladeenu halkaasay taallaa waxa weeye nin wax wata gaara iyo nin waxa wax u duuban yahay midna ma jirayso waa hadii aynu doonayno inaynu xaaladda adag aynu ku jirno inaynu si wanaagsan oo miyir leh oo aqli leh aynu uga baxno
waxaan idin leeyahay markaa anigoo idinla dardaarmay war hawsha aynu doonaynaa degdeg uma baahna war hawsha aynu doonaynaa fudeed uma baahna war hawsha aynu doonaynaa tala yaro hoose uma baahna war hawsha aynu doonaynaa gruub gaara uma baahna war hawsha aynu doonaynaa waxay u baahan tahay in wixii jira si cilmiyeysan oo akadeemiya marxaladda aynu doonaynaa inaynu ka talinaa waa 100 sano soo socda waa in aynu zimiir le oo miisaan looga talinaa waxa weeye nin walowba hadalkaaga sumad ku dhiga baa leeyahay anigu waan aqaanaa dadkan gobolada ka soo jeeda hadal inta la iska yiraahdo hadhowna waxa weeye baabuurta la fuuro maanta ma jirto waxaynu doonaynaa talada la ruugin waa lagu rafaadaa miisaan baynu u baahanaa talaynu u baahanaa caqli baynu u baahanaa waxaynu u baahnay dadkeena darafiyada jira dadka waxa weeye gobolada ka soo jeeda halka kaliya ma joogaan waa inta 100 ay degan yihiin waad garanaysaa 1,000 kilomitir baa xagga la aadaya 700 kilomitir xagga ilaa 800 baa la aadaya marka la isu geeyo ilaa 1,500 kilomitir isku weeray noqonaysaa war dadka waxa la doonayaa taladooda inaan lagu degdegin oo si miisaan leh oo caqli leh oo caqliyad leh in loo taliyo haddii caadifad aynu ku talino haddii calamo aynu ku talino waxa weeye waqtigeeda way soo dhaaftay wixii laga doonayna waa laga gaadho maanta waynaga halka isugu nimid ragga hawsha qabtayna waa ku mahadsan yihiin cidii ku dhimatayna dalkoodii dadkooda u dhinteen ninka calanka qaatayna dadkiisu buu waxa weeye calanka u qaatay waa laga soo gudbay taladii uu yeerka ahayd baynu maanta u fadhinaa waxa weeye inaynu soo dardaarano waa muhiim waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin taladan ninna lagama laha taladan waa la ururinayaa waxa weeye waxa umusha dan oo baa ilmaha dan u ah caluluuxna wuxuu waxaan u wateeyaba tolkay ooda soo jiri Soomaaliya ma wada fadhidaan ma cid baa idinka maqan war ma wada fadhidaan miyaa cid kale idin doonaa war salaadiina ma idin doonaa cid kale war culumay wax kale ma idin doonaa war cuqaale cid kale ma idin doonaa yaa hadla wada mustaan hadda oo idin doonayna ragga waxa weeye akadeemiga cid kale miyaan u doonaa soo dhamaantii ma dhamidin warta ma dhantiin hadda dantii gacanta taaga qabla media ku qabo qabla salaadiina gacanta taaga qabla media ku qabo ilaahu waad aragtaa in maanta la dhan yahay ilaahu waad aragtaa ciidamo ma maqree rag meel kuma wada dhamaadeen waxa weeye dajiya wad mahadsantiin waxaan leenahay markaa maraykanka 320 milyan baa ku nool markii ugu dambeysay dadka talada hayaana waa dad yar oo Congress-ka u soo marka dambe ay soo galaan waxa weeye dadkii talada haya waa idinka weey dadku talada haya waa idinka dhulbahante iyo fuqoshini iyo beelaha kale degaa ama gobolada degaa de inta way ka balaalayeen laakiin dadkii talada u haya waa idinka weey wixii aad u soo goysaan baa la qaadanaya hadnagu haddaanu salaadiintana oo ugaasiyo iyo suldaan iyo garaad iyo boqor bay isugu jiraan wixii aad soo goysaan baanu qaadanayna war hadeer balaysma xanto war haddii waxa weeye idinku aad talada keentaan annagu waanu qaadanayna markaanu qaadanno waxa weeye hadhowba ha oranina nimankii dhaqanka ahaa ee dhulbaantee salaadiinta ahaa hadda si walba waad noo gasheen oo si walba waa idinku raacay ilaahay SSC ilaahay khaatimo wax kasta raali baan ku ahay waxaad kharibtaan oo hadhow annaga nagula soo galgalataan maanta nagula galgalanaysaa maanta wixii aad soo goysaan baan annagu waa mideysanahay aanu qaadanayna fulinteena idinka iskale waxaan idin leeyahay shirkuna waa inoo furan yahay aad iyo aadna waa idin salaamayaa wixii iga aan dhaafin